G7 ama G8 ama G20 ama EU ama NATO ama waxaanay maxay yihiin ama BRICS oo ummado isu tagay oo maxay isugu tageen dantooda ka dhex arkeen isu tagu inuu qiimo u samaynayo iyagoo laga yaabo wadanada qaarkood مثلا China waa de bilyan iyo bar bini aadama markaasuu si uu isaga celiyo Maraykan iyo kuwa kan ayuu BRICS samaystay India ku darsaday oo iyana wadankii labaad ee dunida ugu badana markaasay ku darsadeen Brazil markaasay ku darsadeen South Africa markaasay shan lix wadan baa isu tagaya maxay isugu tagayaan challenges-ka inay ka hortagaan waxaad u malaynaysaa maanta hadduu muslim mid yahay 2 milyan inta xero lagu xareeyo miyaa la tumi lahaa marnaba ma dhacdeen 2 milyan oo qof inta xero lagu soo wareejiyo oo dhan walba laga xidho haddana la yidhaahdo waxba lama siinayo haddana la yidhaahdo xoogaga dunida isugu tagayo tumaya intiina kalena waa inaad daawataan inay daawadaan maxaa keenay waa dacfihim waa kala daadsanaantooda dunida maanta aynu ku noolay iyo challengeska ka jira cid kaligeed isku filani ma joogto isagoo aslul insaan uu faqiir iska yahay bini aadamku haddana kuwa maanta ugu xooga badan leh dunida maanta aynu ku noolahay kaligood waxba ma qaban karaan waa sababta u maqashaan maanta G7 ama G8 ama G20 ama EU ama NATO ama waxaanay maxay yihiin ama BRICS oo ummado isu tagay oo maxay isugu tageen dantooda ka dhex arkeen isu tagu inuu qiimo u samaynayo iyagoo laga yaabo wadanada qaarkood مثلا China waa de bilyan iyo bar bini aadama markaasuu si uu isaga celiyo Maraykan iyo kuwa kan ayuu BRICS samaystay India ku darsaday oo iyana wadankii labaad ee dunida ugu badana markaasay ku darsadeen Brazil markaasay ku darsadeen South Africa markaasay shan lix wadan baa isu tagaya maxay isugu tagayaan challenges-ka inay ka hortagaan dhibaato xadiyaadka hortaagan waliba iyagoo dhexdooda muran ka dhaxeeyo India iyo China dhul bay isku hayaan iyagoo dhul isku haya oo dagaalo ay soo dhex mareen oo mashaakil uu taagan yahay ay haddana waxay u arkeen inta ay wadaagaan maslaxadda u ah inay ka weyntay tan sida awgeed baa nisfu dunya isugu tagtay inay iska celiyaan kuwa kale Yurub waa nooshiin Yurub oo dhan baa isu tagtay maxay isugu tagtay isku af maaha diin ma qaabo badan oo kamid waxba ma wadaagaan laakiin waxay ka arkeen challenge-ka dunida inaanay cid iska celin karaynin maadaama ay u arkeen inaanay cid iska celin karaynin maslaxadooda waxa arkeen inay midoobtay maxaad u malaynaysaa markaa muslimku inuu midoobo kow horta waa mas'ale waajib ah ee maaha sunno iyo saana fiican iyo sama maaha in la midoobo waa waajib diintuna waxay inoogu yeedhaysaa oo dhammi waa waajibkaasi cibaadaadkiiya waxaa layna faray oo dhammi waxay inugu wadaan midowga salaad baa layna faray waxaa lagu yidhi haddaad keligaa guriga ku tukatana waa mid haddaad muslimka la tukatana waa 25 wixii la akhrinayo maad akhrinaysa bal akhriskaagu inuu kaba yaryaa laga yaabaa markaad imaam la tukanaysaad faataxa ku akhrido walaalkaaga dhinaca isku haystaan daraadii ayaa ilaahay wuxuu kugu ziyaadiyay inay 27 salaadood la noqoto soomkii baa la mida xajkii baa la mida mu'tamar caalami iyo muslimiinta oo dhan isugu timaado idan ijtimaac iyo midnimadu cududda dadka ay muujisaa waxaad u malaynaysaa maanta hadduu muslim mid yahay 2 milyan inta xero lagu xareeyo miyaa la tumi lahaa marnaba ma dhacdeen 2 milyan oo qof inta xero lagu soo wareejiyo oo dhan walba laga xidho haddana la yidhaahdo waxba lama siinayo haddana la yidhaahdo xoogaga dunida isugu tagayo tumaya intiina kalena waa inaad daawataan inay daawadaan maxaa keenay waa dacfihim waa kala daadsanaantooda muslimka maanta joogaana wuxuu u arkay xalka mashkilaadkiisu inuu yahay inay kala tagaan doqonnimada halkii ugu dambeysay qof mushkiladiisa ku xalilaya maxay mushkilad kale mushkilad ku sii xalilaya marka sheekh calan rabaa inaan waqti badan ugu deeqe midnimadu
diin ahaan iyo caqli ahaan iyo maanta dunida dhibta ka jirta challengeska hortaagan inaan cidina keligeed wax noqon karin. wadannada aynu leenahay way isbiirsanayaan, waa 12 trilyan baa qaarkood yahay wax soo saarkoodu, haddana waxay u arkeen inay cid biirsadaan oo isku ururaan inay tahay. majaalaadka u baahan inuu tiro badaya idinka meel durugsan baa joogtaan, dad ka kala jargadsantiin baa la joogtaan, diintiinii baa khatar ku jirta. inaad midowdaan oo ururtaan oo waxa dantu idinku jirto. ilaahay rusul buu rusulku taageeray, facazasnaa bithalithin baa ilaahay yidhi, mid saddexaad baanu kusii xoojinay. ambiyadii waxyigu kusoo degayee la diray nabiyullaahi muusa ayaa ilaahay wuxuu weydiisanayay, ilaahu cid dacwada igu kaalmaysa igu dar, walaalkayna nebi iga dhig, ushdud bihi asri, ilaahu igu xooji buu leeyahy. marka haddii nebi dacwadiisa cid xoojisa uu u baahday, idinku maxaa u malaynaysaan? waxaan kusoo koobi markaa, midnimadu waa min waajibaat iddiin, oo qofka muslimka ahi wax qasaboo laga rabo. waxaanu dadku ku midoobayaan ilaahay xadhigiisa. taasaa waxay abuureysaa inay caqiidadoodu mid tahy, oo cibaadaadkoodu mid yahay, oo siyaasaadkoodu mid noqdaan, oo thaqaafadooda iyo kaljarkooda iyo tasawurkooda uu mid noqdo, oo nolosha tan jidka ilaahay baa qaadaya ay kaa wada maraan. jidadka bini aadamku dadka ma deeqaan, laakiin xagga alle xagaaf weyn baa u kacda, asiraat almustaqiim iyo jannada qabata, kaas unbaa dadka deeqi kara. waxa ka soo hadho oo dhami ee casabiyaad leh, qabyaalad leh, qowmiyaad leh, waxa lahoo dhami oo waxaan dadka waxba tarin. waana qaabka keliya shaydaan la ysaga difaaco. nusuusta qur-aan iyo xadiid badan ku soo arooray. marka waxaan kusoo koobayaa, war waa waajib diiniya, haddaad ka tagtana waa dambaabaysaa. sala allahuma calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam. dugsiga casriga ee dalhuja qur'aan online waxaa kugu bashaaraynaya inaad ka baran karto qur'aanka kariimka, xigaata, culumta shareecada, luqadda carabiga iyo tarbiyadda awlaadda adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hablo online. wixii faahfaahin kala xidhiidh nambaradan.